waa ku daba jirnaa, waa raadinaynaa. Ethiopia hadday ku jiraan iyo hadday Soomaaliya ku jiraanba waxaan rabnaa in gacan ku dhiiglayaashaas la soo qabto. Saraakiisha Ethiopia waa kula kulanna meeshaan qaybahooda kala duwan, waana ka wada hadalnay si iskaga kaashalayn saraakiisheena kale ee ciidanka, gudoomiyaha degmada Gurceel, taliye xerow, saraakiisha kale, odayaasha dhaqanka. waxaan ku salaam islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Salaan kadib waxaan halkaan aan joogno waa deegaanka Dhagax Buur oo qiyaastii ilaa 40 kilomitir ku dhawaad u jirta xuduudka Galgaduud ee la leedahay Ethiopia. waxaan gudaha Ethiopia ugu jirnaa qiyaastii ilaa 40 kilomitir. runtii waxaan u nimid halkaan in aan ka hadalno oon shaqo ka qabanno falkii 3 habeen ka hor ka dhacay deegaan u dhow oo lagu laayay dad shacaba oo ilaa 5 qofood ah, qof kalena dhaawac loogu geystay. waxaan rabnaa ugu horeyn inaan ka tacsiyeyno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi ma akhadha wa lahu ma adda wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman. waan ka xunnahay runtii, waxaan raalli ka ahayn ma aha. odayaasheena, saraakiisha iyo maamulka dhammaan waxaan isugu nimid oo aan uga soo baxnay qaarkeen Muqdisho ka yimaadeen, qaar gobolka Galgaduud qaybo kamida ka yimaadeen, qaar deegaanka yihiin oo meesha ugu nimid in aan arintaas muujino sidaan uga xunnahay iyo inaan raalli ka ahayn. dad wax magarata ah oo maaragtay daalimiin ah in ay falkaas geysteen xilli Ramadaan lagu jiro oo bil Ramadaan oo bil cibaado ah, in dad muslimiina dhiigooda la daadiyo. waa ogtiin miisaanka ay leedahay la zawaalu dunya ahwanu cala Allahi min qatli mu'min oo kama qaala nabi sallallahu alayhi wasallam. adduunka oo dhan la zuuliyo qof muslina oo la dilo ayaa ka weyn macne. marka qof muslina oo bil cibaada haddana in la dilo waa runtii waa dembi jariimo weyn waaye. runtii taariikh ahaan dagaalada deegaanadan waa wax muddo soo jiray. waxaan rabaa inaan caddeeyo horta meesha wax ka dhaceen inay Ethiopia tahay oo dhinacii Soomaaliya aysan ahayn. sidaasay tahay. anagoo xildhibaan federaal ah oo Soomaaliya ah ayaa intaas u soo galay xuduudka. intaasna waxaan u soo marayay runtii inaan muujino solidarity iyo garab istaag dadkii wax laga dilay, dadkii gacan ku dhiiglayaasha ahaa falkaas geystayna sidii sharaacada loo horkeeni lahaa iyo cadaaladda. waa ku daba jirnaa, waa raadinaynaa. Ethiopia hadday ku jiraan iyo hadday Soomaaliya ku jiraanba waxaan rabnaa in gacan ku dhiiglayaashaas la soo qabto. dadka abriyada hal goob ku wada dilay wax sax ma ahayn, raalli kama ihin, tala teenna ma ahayn. runtii insha Allah tacaala saraakiisha Ethiopia waa kula kulanna meeshaan qaybahooda kala duwan, waana ka wada hadalnay si iskaga kaashalayn saraakiisheena kale ee ciidanka in arintaas iyada ah laga hortago. waxaan rabaa oo kale inaan xuso heshiiska 13 Maars la galay. runtii heshiiskaas waxaa lagu galay deegaanka Xirsulugay. wuxuu si khaas ah heshiiskaasi inkastoo dadka deegaanka qaybtan ku nool iyo kuwa qolo dhinaca kale ku nool Soomaaliya Ethiopia ba isku qolan yihiin, haddana laba maamul ay ku kala hoos jiraan. halkan heshiiskii ugu dambeeyay la galo wuxuu ahaa 12 bilood ka hor buu ahaa kii ugu dambeeyay oo dhacdadii xaraala ka dhacday ku xigay. heshiiskii Maars la galana wuxuu ahaa midkii ay dawladda Galmudug hogaaminaysay. inkastoo labada sidaan sheegay labada bulsho isku mid yihiin, haddana waxa weeyaan heshiiska waxaan rabnaa kii horena inuu sidii u jiro oo Xirsulugay oo odayaashu u saxiixeen inaan sidii ugu jirno oo heshiiskaas aanan ka bixin oo dadka deegaankaanu aysan ka bixinin oo sidiisii u ayidsan yihiin, sidiisii u adkaynayaan inaan halkaan ka caddeeno. odayaashii waa wada fadhiyaan. kii hore oo halkaan lagu gaaray oo deegaankan quseeyay iyo midka cusubba, laakiin dad hubkii iska wata oo wax magarada inay yihiin dadka falka geystay aana ka xunnaa aan daba joogno. waxaan rabaa si xal waara loo helo arrintan laba qodob oo muhiim ah
oo midna dowladda deegaanka Soomaalida ku xiran yahay oo ah inay meeshaan ciidan rigliya keento dadkan hubka iska wata ee isku ugaarsanayana ay tilaabo ka qaado muddo ka hor hubkaanu meeshaan lagu mahaysan jirin dadkan iyo deegaankan waa kala nabad galeen hadda isbedelkii Itoobiya kadib ayay arintaanu timid marka waxaan rajeynaynaa in tilaabo laga qaadi doono dadka hubka iska wato sharciga gacmaha ku wata ee dowladda Itoobiya iyo dowladda deegaanka ay tilaabo ka qaadaan insha Allah ta'ala taas waa qodobka labaad waxaa jirta shaqo aan wadno oo ah in ciidamo rigli ah ayagana la dhigo aaga Balanballe oo ay iskaashi kuwan sameeyaan arintaas waa dhowdahay hadda ciidamada kale oo noo jooga ka sii howlgalaya laakiin ciidamo gaar ah oo loogu talagalay ayaa meeshaas insha Allah ku howlgali doona ciidamadaasu iyo kuwa dowlad deegaanka xiriir toos ah ayay yeelan doonaan waxaan rajeynaynaa dhacdada dambe oo dad shacab ay isku dilaan ayagu inaysan dhici doonin intaas laga gaarayana hadeertaan saraakiisha halkan aan kula kulanno ilaa iyo Shilaabo ka yimid iyo kuweeni oo ilaa iyo Dhuusamareeb ka yimid oo Galmudug iyo federaalba matalayay xiriir rasmi ah sameysteen dhacdadan laga bilaabo inay iskaashi toos ka yeeshaan wax dambana ay soo laaban marka waxaan rabaa ugu dambeyn inaan ugu baaqo walaalaha dhibku gaaray walaalayaalow in aad isxakameysaan oo dad adinka in ka tirsan oo dabcan dadkoodii la dilo waa fahmi karnaa culayska haysa kara laakiin waxaan rabnaa in la isxakameeyo sababtay tahay haddii adinku qolo in ka tirsan ee qolo kale oo aan gacan ku dhiiglihii ahayn ay dilaan waa fidnadii sii soconaysa waa ku faraxsannahay inaad hadasheen si qurux badan u hadasheen Balanballe ka hadasheen waa mahadsantihiin runtii aniga waa Soomaano been ma sheegi karno dhihimayno 3 bari aad dhahdeen muddo sharci 3 bari aan ilaa ku keenayna ma oran karno ilaahay baa naga og oo nimankii meel taagan yihiin ama aan ku ognahay oo rasmi ma jirto laakiin waxa naga daacada oo naga lilaahi ah inaan arintaasna ku qanacsaneen raallina ka ahayn sidii gacan ku dhiiglaas looga daba tagi lahaana aan sameynayno baaqaas nabadda ayaan direynaa heshiisyadii iyo ballamihii la galay sidoo noo yihiin waxaan ka codsanaynaa inaan gacan ku dhiiglaha loo hiilin annaga haday wiilasheenu ay khalad sameeyeen kuwiina ka celiya si uusan gacan ku dhiigluhu fursad u helin nabadana aan fursad insha Allah ta'ala wada siino aad iyo aadaan idinla maaratay damqanaynaa isxakameeya labada dhinacna waa iskaasho doonaa gacan ku dhiiglahana waa soo qaban doonaa hadii ilaahay waxa intaas u soo marnay waa inaan intaas aan wada sameeyno marka baaqaasna waa inii direynaa waana mahadsantiin oo jazaakumullahu khairan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh